Idabo kulan maanta ay yeesheen golaha guurtida koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka soo saareen war-saxaafadeed ay markaasi kaga hadlayeen maamulkii dhawaan loogu dhawaaqay gobolada Shabeellooyinka oo loogu magac daray Shabeelle State iyagoona ku eedeeyay in ay ka dambayso dawladda federaalka Soomaaliya war-saxaafadeedkaasi ayaa waxa akhriyay gudoomiye ku-xigeenka golaha guurtida koonfur galbeed ee Soomaaliya Suldaan Siraaj Aadan maamulka fowdada ah ee labada Shabeelle loogu dhawaaqay deegaanka Ceelasha Baydhabo Soomaaliya 12kii bishii 3aad 2014 ku taariikhaysan golaha guurtida siyaasiyiinta dhalinyarada haweenka culamaa diinka iyo oday dhaqameedyada koonfur galbeed ee ku sugan magaalada Baydhabo waxay walaac aad u ballaaran ka muujinayaan cambaarayn ballaaranna dusha uga tuurayaan dagaalka cusub ee siyaasadeed oo ay wadaan dad war-saxaafadeedka kadib ayaa kulanka waxaa sidoo kale ka hadlay odayaal dhaqameed iyagu ka soo jeeda gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya hadaladooduna waxaa ka mid ahaa la hadlaa madaxweynaha federaalka iyo wasiirka arrimaha gudaha waxawaaye markii ilaahay isku doorto waa ku jaraw ilaahay ama naar ama janna tacbiye sharaf iyo xumaana tacbiye labadaas taas horta ogaada dad wax ogaatiin wax kasta tiin taas ogaada kallamaad maanta shir jiraa'idkan waxa u qawani barnaamijka daraatan oo soo yeeri gobolada Shabeellaha hoose iyo Shabeellaha dhaxal ku daray wax adaceen wax adacajirin adac korin waaye taas horta ogaada kallamaad madaxweyne waxa ku sheegaa hadii cilmi leedahay waa maqlay maanta fursad waxaad haysataa in khiyaamo ilaahay dad shafaacal koow oo markiisa soo dhaweeyo arshiga imaam caadil way hadii imaam caadil aad noqoto sharaftaada ilaaha noo sheegay hadii taad ku socod aad noqotane ilaahay idinkiis waxaas ilaahay iska balan qaad adduun aakhir isku ceebay aakhir isku cadaw macallin warshada sigaarka adaa itaba baray waan ku ogahay nin aqoon leh oo talent leh oo waxtar lahaa tahay faayo waa qof kula hadlay adaa wax ibaray shaqo adaa ibaray maantana waxaan u taaganahay inaan waxaan dhisay dawlad goboleedka koonfur galbeed aad ka dhalatay waxaan maanta aad uga xumahay inaad intaad soo istaagtay ayadoo maamul goboleedkii dhisan yahay ee guurtadii joogto oo madaxweyne la dhisay inaad maanta Shabeellaha hoose aad tiraahdo Shabeellaha dhaxan ku dar waa ku qaldan tahay Abuukar dadkaaga soo raac waa ku baahanahay nin waxaad